بسم الله maanta meeshaan waxaa ku wareysanaynaa Seybo oo aad dareenkeeda u kacsan yahay sayna maanta maxaa ka xanaajiyay waxaan la yaabay oo aan arkay jilasha Soomaaliyeed qaarkood ama sida ay u badan yihiin sida ay u dhaqmayaan ayaa iga yaabiyay waxaa jira gabar aan aad u jeclaa oo saaxiibadeeda ah oo da'deedu 21 jir ah waxay haysataa 3 cunug ama 3 caruur ah waxa ka dhalay wiil Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed ee calafkii baa dhamaaday way kala tageen muddo kadib wuxuu Ilaahay qadartiisa ku dhacday inay ku dhahdo waryaahee faaraxo waxaad soo dirtaa lacag intaas ah wuxuu ku dhahay lacagta aan ku soo diray maxay sida diilaysaa wuxuu ku dhahday ilmaha daba u baahan libis noocaas ama waxaasa wuxuu ku dhahay soo shaqaalkaasi ama wax la mid ah wuxuu ku dhahday ilmaha ay hadaan lacag wixii waa loo baahan yahay maxaa la sameeyaa wuxuu ugu jawaabay wuxuu dhahay okay waan soo diray wax ilmaha aniga ma idoonaysaa waxay ku tiri may ani adiga shalay dhibkii aan ku kala tagnay aan maanta yaalo sidaas daraadeed adiga ani kuma rabo laakiin waxaa tahay walaalkayga wiil Soomaaliyeed sidaas darteed ani adiga waxaan hay laba qof walaalooday wuxuu ku dhahay haddii adiga aadan idoonaynin aniga ilmahayga ma doonayo way maxaa kugu kalifay in aad naagta ilmahayga isku xirto wax ma iiga sheegi kartaa in hal maalin ma saddex maalin ma kasas dhahay Soomaalida way badan yihiin waxaan ku leeyahay wiil walba oo noocaas u dhaqmo walaalo Ilaahay ka cabso rasuulkaaga Ilaahay ku unta ka cabso oo rasuulkaaga adeec ilmahaaga diiniga xaq bay kugu leeyihiin dhaqamiya Soomaaliya dhankeeda xaq bay kugu leeyihiin marka sidaas daraadeed ittaqullah ba qul Ilaahay ka cabso maalin dambana ilmahaaga wax u soo dhigay uu dhahay maanta deero ku rabin macnaheedu ma aha in ilmahaaga diguna aadan rabin midda qana waxa ku leeyahay Soomaaliya in ay jiraan Soomaali badan ama dad kale oo badan oo muslimiin ah aan hal cunug haysanin ee u bixi intaas oo kun bilyan in hal cunug helaan maxaa ku kasbay adiga ilmaha xalaalihiin waxyar aad u awoodin aad dhahdo micnaheedii in adiga hadaadan ilmaha qalacaq ma soo diraa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.